isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer maamulaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale xildhibaan Mubaarak Bidho oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo isugu jirta xarumaha hooyada iyo dhallaanka iyo sidoo kale xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha oo laga hirgeliyay deegaanka Ballacalan oo ka tirsan gobolka Buuhoodle sidoo kale mas'uuliyiintani waxay deegaanka Ballacalan la gaarsiiyeen daawooyin iyo sidoo kale shaqaalihii ka howlgali lahaa xarumahan xariga laga jaray munaasabad kooban oo loo sameeyay furitaanka mashaariicdan ayaa waxa ka hadlay cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka Ballacalan leh oo u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay mashaariicda laga hirgeliyay deegaanka Ballacalan leh caafimaadkii dadka iyo kii xoolaha labadiiba ay maanta aad halkan ay noo soo dhameystirteen inaad noo furtaan oo waxaan idinka ballan qaadaynaa waxa noo sideen inaan dayactirno wasiirka caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenkiisaba sida xildhibaanku noo sheegay aad uga la shaqeeyay in maaragtay ay halkan daawooyinkan iyo agabkan yimaadaan iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka sidoo kale iyagana waxaan u mahad celinayaa wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka dhamaantood dadka waa u mahad celinaya dadkiina deegaanka ee hawshan loo qabtay waxaa laydinka rabaa inaad soo dhaweysaan wasaaradda caafimaadku maanta iyada ku guuleysatay in xanaanada xoolaha xanaanada dadka Burco fadalo aanu aad iyo asnara looga nahay dadka noo dhagaa dawana dadka wax noo maqlaya waxaanu leenahay bilayska noo soo kordhibaa noo kordhinaya nabadiida idinkuna bilayska dhaqaalaysta xagga dhismaha dadaal badan baan u soo marnay 6 sano 7 sanadood baa dadaalka la waday iyo dadkeedu oo aan waxba iskala saarayn iyaga dhistay fuliyay ilaa iyo haddana xuquuqdoodii dhamaystirka ee dhismaha xagga dawladda ku maqan yihiin waxaan ammaan iyo bawaadin soo jeedinayaan wasaaradda caafimaadka oo wasiirku ugu horeeyay iyo wasiir ku-xigeenka xildhibaan Mubaarak Bidho oo kamid ah golaha deegaanka ee degmada Burco oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada ku dhaqan deegaanka Ballacalan lagu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashooyinka deegaanka iyo sidoo kale wakiilada Ballacalan waa run madaxweynaha waa doorateen bilaa shuruud laakiin wuu ku soo celiyay wax alaabtan taala wasiirada iyo isuduwaha iyo ku-xigeenku waxay wakiil kaga yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi ayay wakiil kaga yihiin wixii idinku ballan qaaday wax qabadkii wixii hore waa taamaanta taala waxaan idin xusuusinayaa halkan ciidan baa laga hadlay booliis waxaan idin ballan qaadayaa inaan Ballacalan ciidan askar booliis u keeno oo saacada wixii laga ka howlgalo isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer aadan cilmi diiriye maamulaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee gobolka Togdheer Faarax Saleebaan iyo bulshada ku dhaqan deegaanka Ballacalan loogu baaqay inay ka faa'iideystaan xarumahan caafimaadka dawadii oo dhan iyo shaqaalihii yaan idinkan xanaanada la dhisay qaybta booliiska xanaanada kale xoolaha idinka ilaashay idinka leh reer Ballacalan leh deegaanka reer Ballacalan leh dawladdu ma laha idinka ilaashanaya bisha gudaheeda bisha Maaris gudaheeda 4 taageed bood sabaya marka reer Buuhoodle ku jirta waxaan ugu bishaareynayaa mashruuca labada sano soconaya mashruuca labada sano soconaya ku jirtaan in la furo xanaanadii xoolaha oo muddo yar dhisnayd dhakhaatiirtii iyo daawadii ayaan u sidnay daawadu inta ahaan mayso waa soo soconaysaa Khaliil Barraawraan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.